شبكي سبنادي عران انت وكسما بحي سمايو وعنايو واوا سردي سودو دلكيني سودو سما بحي سمايو وعنايو واوا سردي بسودو دلكيني سودو حدي ساكا عرانكي سومالي لانجبي سوريا هيدو الشيدي ساتير مهدي ويا ساتير مهدي ويا ساكا عرانكي سومالي لانجبي سوريا هيدو الشيدي ساتير مهدي ويا ساتير مهدي ويا
laga tagaya tafaraaruqiisu tashaday tabarya qabiil waa la tiraya waana laga tagaya tafaraaruqiisu tashaday tabarya ay ku talagalkeedii maalintii tilmaanayd 18 waad aan xusayni waad aan xusayni ay ku talagalkeedii maalintii tilmaanayd 18 waad عن حسيني وات عن حسيني علي خوف المانتا والتوحيد كيبي تير عن شبينو وليغاب تاغنو وليغاب تاغنو يهون في المانتا التوحيد كإيبي إذا شبينو وليدا غتاغنو waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh caawa ay bishu tahay May 15 2016 waxaa farxad weyn inoo ah inaynu ku soo dhaweyno magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka walaalkeen ahna ahaa wasiirkeedii hore ee maaliyadda Soomaaliland mudane Cabdicasiis Maxamed Samaale isagoo inoogu yimid dalkeenii hooyo ee Soomaaliland waxa aad iyo aad idinka mahad celinayaan kasoo qaybgalka xafladda soo dhaweynta aynu ugu talagalnay mudane wasiir Cabdicasiis Maxamed Samaale mudane ku soo dhawow Minnesota barnaamijkeena caawa waxa aynu ku faranaynaa quraanka kariimka ah oo inoo akhrin doono Cabdishakuur Maxamed Cabdishakuur ku soo dhawow maslaxa واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم.
ilaahay haynagu anfaco aayadaha qur-aanka. haddana waxaan kusoo dhaweynayaa stageka walaalkay cumar xasan. عليكم ورحمة الله وبركاته. مدنيال يا مهويبا waxaan jeclahay inaan idinka raali galino in yar oo idinku habsaanay oo kale berita shaqo iyo hawl baa loo socdaaye caawana halkan cashaynu nimid iyo isbarasho iyo walaalkeen Cabdicasiis Maxamed Samaale oo aynu xoogay bal ka yara hadalsiino niraahno noo warramo maxaad halkan noo timid maxaad noo sheegi kartaa maxaad nagu kordhinaysaa waynu kala faa'iidaysano haddii uu waqtigu inoo saamaxo. marka waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo mikrofoonka walaalkeen mudane Cabdicasiis Maxamed Samaale oo ahaa wasiirkeenii hore ee maaliyadda wasiirka Somaliland. Cabdicasiis waa kusoo dhaweeyo mikrofoonka dadweynahana waa isugu soo dhaweeyo. صعبك كريمنا كمان أول نمر كيمنا على رأس كارليسيو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدنيال iyo marwooyinba dadka sharafta iyo qiimaha leh ee reer Minnesota ee munaasabadan iyo xafladan qiimaha badan caawa aan isugu nimid waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka mar kale. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan ilaahay ka baryayaa in kulankeena ilaahay uu ka dhigo kulan khayr qaba oo waxa wanaagsan ilaahayna waafajiyo. waan idin mahadnaqayaa runtii, waana ku faraxsanahay inaynu caawa halkan isugu nimaadno idinka oo matalaya dhammaanba dadkii reer Minnesota iyo deegaanada kale ee agagaarkeeda ee runtii ku dhow. farxad weyn bay ii tahay, aad iyo aadna waan idinku mahadnaqayaa. ilaahayna ha idinka abaaliyo. Somaliland waynu ducaynaynaa ilaahay khayrka waafajiyo. ummadda Soomaalidu meel wali joogtabana waxaynu ugu ducaynaynaa ilaahay wax wanaagsan waafajiyo. waad arkaysaa runtii guud ahaanba dadka Soomaalidu yani masaa'ib baa haysata meel wali joogaanba, yani qaxooti bay ku yihiin. magacii qofka Soomaaliga ah waa laga xanaaqayaa meel wali joogtaba. ma sheegan kar idinku baasaboorada aad qaadateen baad ku badbaadaysaa tamanaga Soomaaliba Maraykan baan haybaaleedii soo maaha saasaad oranaysaa. dabcan yani waa xaqiiqatan waa dhib dhacday weeye, masaa'ib dhacay weeye in ilaahay ka saaro oo ilaahay inaga saaro masaa'ibta oo dadka Soomaalida meel wali joogaan ba ilaahay u soo celiyo wanaagooda iyo nabadgelyadooda baynu ilaahay u weydiinaynaa. cid walba meeshii joogta ilaahay ku nabadgeliyo wanaag iyo khayr ku siiyo. dibaddu ina qaadi mayso, dadkuna qaxooti wada noqon kari maayaan, dibadna la wada iman kari maayo, lamana wada iman karaba. ummadda badideedii gudihii bay joogtaa. marka in gudaha la joogo ilaahay wanaag iyo nabadgelyo iyo dowladdu wanaagsan ilaahay ku siiyo aynu ilaahay weydiinaynaa. Somaliland madaxyo kala duwan bay soo martay, saad la socotaanba madaxyashaa kala duwan ay soo martay. kolba marxalad bay taagnayd laga soo bilaabo maalan 1991 markii uu allaha u naxariistee madaxweynihii ugu horreeyay jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Axmed Cali madaxweynaha ka noqday. duruufo adag buu la soo gudboonaaday runtii ama la kulmay, hase yeeshee uu ka dabaashay. marxalad bay ahayd marxaladii gooni isku taagga iyadoo soo noqoshada Somaliland. marxaladii taa ku xigtayna waxay ahayd marxaladii dowladnimada allaha u naxariistee marxuum madaxweyne maxamed xaaji ibraahim cigaal ilaahay naxariis janno isagana ha siiyo. isaguna dowlad ayuu dhisay, haykalkii dowladnimo dhisay ilaa uu dalka soo gaarsiiyey marxalad axsaab
la furo 2002 ayuu geeriyooday isna Allah u naxariisto waxaa talada uga dambeeyey madaxweyne Daahir Yaale Kaahin oo isaguna 2002 May laga bilaabo talada dalka la wareegay 4 doorasho oo kala duwan buu dalka ka qabtay waxa uu ku guuleystay inuu nidaamka axsaabta badan dalka ka hirgeliyo waxa uu ku guuleystay doorashooyinku u horreeyay dowladaha hoose in la qabto xilligiisa dowladeedna la qabto doorashadii koowaad ee madaxweyne ee xilligiisa haddana la qabto doorashadii ugu horreysay ee baarlamaan waqtigiisa haddana la qabto mar labaad doorashadii madaxweyne xilligiisa 2010 xilkana si nabadgelyo ayuu ku wareejiyey oo doorasho ah oo dadku wax doorteen magac iyo maamuus baanu dalka maantana ku leeyahay kagana tegey dalka madaxweynihiisa ku wareejiyey halka aynu aragno madax badan oo afrikaani kursiga markay ku fadhiistaan weligood inaanay ka kicin ama madax badan oo carabihiiba ilaa qoli caalami lagaga kiciyo oo waxa ummadaha baabiya ah runtii marka qofku kursiga uu jeclaado ee uu kaba kici waayo yidhaahdo anigii ummadda oo dhimataan ka jecel inaan anigu dhinta ama aan kursiga ka tego markuu qofku yidhaahdo ummadda iyo isagu way ku halaagsamaan sida in badan caalamka ku aragno si xaraga leh ayuu talada dalka u wareejiyey 2010 markii doorashadii labaad ee madaxweynenimada tii walba isagu ku guuleystay tii labaadna lagaga guuleystay wuu wareejiyey isagoo la jecel yahay dadkiisa iyo dalkiisa dhex jooga maanta waxaa ka dambeeyey oo dalka maanta madaxweyne ka mudane axmed maxamed maxamuud silaayo oo isagana 2010 la doortay isagana waxaynu rajaynaynaa si nabadgelya sidii madaxweyne Daahir Yaale Kaahin u wareejiyey inuu isaguna 2010 waanu laga qaaday inaanu doorashada nabadgelka isagu isku taagi doonin isagana runtii waxay ku sultan tahay xukuumadda maanta joogta horumar iyo tiyo halkii uu soo gaarsiiyey madaxweynihii hore laga sii qaaday oo wax la sii qabtay waxaan rajaynaynaa cidda iyaga uga dambaysa iyo madaxweynaha isaga ka dambeeya ka noqdabana in ilaahay iyagana uu ku asturo oo xilka uu fudaynayo biidni illaahi tacaala waxaynu u baahan nahay qiyaado iyo madax ummadoodu ay jeceshahay waxaad ogtihiin doorashooyin kala dambeeyey baa dalka runtii ka dhacay saasay ku qurux badan tahay in yacni doorasho timaado oo dadku ciday doonayaan ay doortaan oo dabeedna qofka laga badiyaa kursiga baneeyo soo maaha inas ahayn mise waa in lagu dheganaado in la baneeyo waad arkaysaa runtii madaxweynuhu markuu isagoo madaxweynaha intuu doorasho qabto uu kursiga baneeyo markuu madaxweynaha si aan loo jeclayn baad loo jeclaadaa marka kursiga ka tago waa la jeclaadaa runtusay tahay laakiin marka maalka laga kici waayo uu macno beelaa ummadana wuu ku baabadaa nidaamka axsaabta badani waa nidaam yani dalka runtii u keenaya in kursiga si nabadgelya iyo madaxnimada laysugu dhiibo waynu ka soo gudubnay marxaladii yani qofka ama yani qoli uu wax ku doonayey ama xabad wax ku doonayay waa la dhaafay ummaddu iyadaa ciday doonta runtii doonaan marxaladda aynu soo gaadhina marxaladda iyadna halkaa laga sii wado oo halkaa in yani horumarka iyo mataqaanaa inta dhimada sii dhamaystira wey wax badan oo dhiman somaliland halkay maanta taagan tahay madaxishaa kala duwanay soo martay haddana mar walba inta dhiman baa ka badan inta la qabtay xaqiiqada wey haddii maanta la isdhaahdo maxaa dhiman hala sheego waxay noqonaysaa koob inta ku jirta ay aada u yar tahay inta marana ay badan tahay laakiin mar walba waxaa loo baahan yahay in la isqiimeeyo waxaa loo baahan yahay in inta ilaahay ku siiyey ilaahay loogu mahadnaqo in inta kaa dhiman si nabadgelyaa in lagu gaadho la isku dayo waxaa loo baahan yahay in damaca shaksigu leeyahay laga horreysiiyo danta guud ee dalka iyo dadka waxaa loo baahan yahay inay wadaninimadu qiimo yeelato oo shaksinimada iyo qabiilku ay yaraadaan waxaa loo baahan yahay aynu u baahan nahay inaynu qofka ku doorano aqoontiisa iyo kartidiisa iyo daacaddiisa iyo wanaagiisa ee aynaan qabiil ku dooran intaasina runtii biidni illaahi tacaala wadadeeda in la qaaday ayaynu wadadeedaynu haynaa ilahina waxaynu ka baryaynaa in ilaahay subxaana wa tacaala
inoo dhib yareeyo oo nidaamka dowladnimo ilaahay inoo waafajiyo nidaamkan ku socdo ilaahay tinkiisa wanaagsan inagu cago ina tusayn ilaahay ka baryana dadka Soomaaliyeed waa laahanahay aynu maanta kala dowladda nahay inaynu socolaadina maaha waa inaynu isjeclaano oo inaynu walaalnimo dadka kale iska xigno ogaano oo jaal wanaagsan iyo walaaltinimo wanaagsan lagu wada noolaado oo la isqadariyo oo la istiramo iyagana u ducayno in ilaahay dhibaatada ka saaro nabadgelyada ka saaro nidaam doorasho oo wanaagsan ayaguna gaaraan oo inagoo isjecel oo jaal oo wada noolaado iyagana inuu ugu ducayno ilaahay subxaana wa tacaala dowlad wanaagsan siiyo inagana dowladdeena ilaahay inuu sii hagaajiyo inoo sii horumariyo waxaynu doonaynaa wanaagsan ilaahay subxaana wa tacaala inoo xaqiijiyo waxaan walaalayaal hadalka jeclayna ku soo gabagabeeyo idinkoo raaliga ahaanay haddaan hadalkaydi ku dheereeyey oo aanan marka hore dheera islahayn welina aan islahay wax badan ood sheegtaa kuu dhiman laakiin maadaamay berri maalin shaqo tahay waa isniin soo maa annaga shaqadu sabtidee noo bilaabantaa dee waddanka isniinta nooma bilaabanto idinka isniinta idin bilaabantaa sabtidii axadda waa haliday soo maa annaga jimcaha la nastaa waay waxaan runtii jeclay hadalka inaan kaga baxoon kusoo koobo inaynu isku ducayno oo dadkeena iyo dalkeena iyo ummadeennana u ducayno oo ugu ducayno waxa wanaagsan marka qalbiga la isaga duceeyo ee wanaagga la isla jeclaado waa la gaaraa markase la isxasdo la isdibsado la ishabaaro lafteeda wuu dhacaa soomaalida waxa laga yaabaa si guud inay ishabaartay dabeedna habaankii ku dhacay in la ducaystaa loo baahan yahay la ducaysa runtii oo la isku duceeyaa loo baahan yahay qalbiga la isaga duceeyaa loo baahan yahay xiqdiga iyo xasadka runtii la yareeyo oo sidii looga gudbi lahaa falowgeed la gala loo baahan yahay waxaynu u baahan nahay marka ilaahay wax ku siiyo ay wax kaa maqan yihiin ee qofka kale waxa kaa maqan qof kale ilaahay u siiyo ee haddaad xanuunsanayso qof caafimaad qaba aad arkayso oo haddaad cayrtoonad xoola lahayn qof xoola haysta aad arkayso oo haddii wax badani kaa maqan wixii kaa maqnaa qof kale oo haysta aad arkayso ood qofka wuxuu haysta adigana in ilaahay ku siiya aad jeceshahay waxa lagu ducaysta ilaahay qofka waxaa siisay wax lamida anigana isii laguma ducaysto ilaahay isaga ka qaado aniga isii ويكاس هو حسد وي وحسد إلى هاي السجنة كقاضي ما يعذر كبسين ما يو لكن لا واحد إله هو حاول هيستانه هو شعره وحلم إذا إله هو سي السجن إله هو زيادة هذا ترى السجن إله هو زيادة معي كيلي مركز إله هو السجن هو زيادة تراه إلهي هذا دونه هو زيادة هذا دونه زيادة ما يو هذا بسبب حاجة يسوي كبسين إلهي مركز حسد كوب بيريه الروح قف كاس هيستا حتى يسوع إلهي كقاد ماي أديك لو حد ولا سكسين ماي هذا العافمات قفك حنوسن يودعي هذا الحول ستو هذا أنا هذا الحول هيستو قفك فقير كودعي هذا الحنوسن يسيله عافمات السيد قفك عافمات كقبنا إلى عافمات كيسو زيادة دي الرجال نقول هذا عن الله وديسنا أفضل ما وحى بدونه إيه ولا يحسن إن الله يوافقيه وهو يحسن إلهي يوافقيه آدي بدو ما حسنتين مركز واحد ذي كما هذا غير من الصوت قالها وقمان تلاقين إن واحد قال هل كان هم تيجي كشيء وتكون ما حسنتين سودويته عشان يحسن بعد الله هاي سياستنا وحروب عندها مركز قال كل بهاش دك حنو قال إسكتها جاي إنك حنو قال إسكتها جاي دك ولا يحسن إسكتها له سياستنا وتذكر كذا بسيسي سياسته واتي ذلك كل سنة واتي مدة سيسي وسياسته ونحسني هو كان ونحسن بكي ماذا هو كان ونحسن نوبة عنا يدل ونحسن ومضو طريق نوبة عنا سياسته واحد نوبة عنا إليه ونحسناته سياسته ما حبير الشيء يحمل الشيء يعيث ما هي وروح ونحسن هو شيء ذلك ونحسن اسكتها له قفل بنا وحدوني ونحسن إلى ياسي والماستي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شعب سومالي لا هذا يكون
sifoobay